ودقيسو وحي فائدة أهنا كربح نفتاذنا أقويا خيرك نبي صلى الله عليه وسلم أيا وحو بوغذنين أصحاب تكمدها أو آدو حنون سنيي وحا ويدي إلهي وحما ويدي سنجرتي ويلكي أيا وحا جوابي وحا نرنجر إلهي ودنبية آنقل عقابتي مالتي يوم القيامة ليغا جر لها هد إيسو ددجيو الدنيا ليغا جر وحو يري سبحان الله ما تري إلهي الدنيا وح وناكسن إنكو سي آخرنا وح وناكسن إننا بدبادي عذاب تادا نبي الله يوسف عليه السلام مركي وجالك وقت بدن كدح قاتي وكراغي وحا يري إلهي وجالك آذا يدي كدح راجسي إلهي أيا جوابي أو يري أديك أيا دلبدا جيل وانا نكو سيني هدي أدلبان الله دنب داف وانا كو دنب داف لهين قرآنك أيو إلهي سبحانه وتعالى كحسي هذا النبي يوسف يري قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلهي وجالك أيا إيغرون وحن أي إيغو يريان إلهي ندلب كيسي أيو أوفيي ما دامو كدلبدا جيل ديبو حسوسا نولوشادا انت جيراد كو دواقدي ويدا او ايك هدلadaas امام الوردي ayaa waxa uu yiri القدر موكل بالمنطق waxa aad ku hadlaysaan ka warhaya carabkiinana ka ilaaliya hadallo noocaasi ah oo habarina waxa aad ku hadlaysaan naftiina ayay hadhow dib u keeni kartaa waxa aad ku hadlaysaan amba ilaahay ka dalbanaysaan ha noqdo waxa ugu wanaagsan ee aakhiriya adduunba ku anfacaya sheeko uu warinayo sheekh lagu magacaabo Cali Tandaawi ayaa waxa uu leeyahay sheekhu Sham ayaa waxaan ka ahaa qaadi amba garsoore maalin maalmaha kamid ah ay ahayd waqti cadceedu sii dhacday ayaa waxa aan wada soconay niman saaxiibaday ah annaga oo dariiqa socona ayaa waxa aan dareemay daal iyo culays zaa'id ah waxa aan damcay inaan adkaysto oo la sii socdo saaxiibaday balse waan awoodi waayay kadib ayaa waxaan ku yiri iska sii socda anigu meeshan ayaan ku yara leexanaya oo hawada ayaan qaadanayaa markii aan ka leexday ayaa waxa aan maqlay gurxan iyo ooyin dhagahayga ku soo dhacaysa markii aan sii dhawaaday ayaa waxaan arkay gabadh foorarta oo oohinaysa isla markaana ilaahay baryaysa waan ku dhawaaday oo waxaan idhi walaalay maxaa kugu dhacay oo sidan kaaga oohinaya waxa ay tiri saygaygu amba ninkaygu waa nin xun oo daalim ah gurigii ayuu iga soo eriyay caruurtiina wuu iga reebtay xataa iima ogola inaan soo eego aniguna ma haysto hoy iyo cid aan u tago qaadigi ayaa waxa uu ku yiri oo dacwadaada maxaad ugu gudbin weyday qaadiga magaalada aad ayay u ooyday kadib waxa ay ku tirsiday gabadh anigoo kala qaadiga ugu tagi kartaa sheekha oo hinaya ayaa dhameystiray oo yiri gabadhu ma oga inuu ilaahay qaadiga lugihiisa ugu keenay isagoo ka hadlaya naftiisa ilaan waa qaadigii magaalada ilaahay ayaa waqtiga madow ee habeenimada ah qaadiga lugihiisa ku horgeeyay gabadhaas isla markaana uu isaga laftiisu weydiinayo gabadhu waxa ay u baahan tahay gabadhaasi sidaas u dhibaataysnayd ducadii ilaahay weydiisatay ilaahay wuu aqbalay qof walba oo dhibaato dareemaya oo u maleynaya inay adduunyada ka xirantay gacanta kor u taago ilaahay weydiiso wax aad u baahan tahay oo hays oran sidee xal loo gaari karaa oo kuwan umuurihii isku qasmay ka farxa qalbigaaga ugu markaad dhibaato u samirto kadib inuu jiro shay ku ilowsiin doona dhibaatada aad soo martay ilaahayow qof walba oo fariintaydaasi furay ee maqlay ilaahow barakee oo cirka iyo dhulka uga fur arsaaq uu ku farxo qof walba oo sii sheergareeya oo sii faafiyana ilaahow jannadaada xisaab la'aan ugu nimcee ilaahayow waxa uu haminayana u fududee isaga iyo dhammaan muslimiinta dunida ku dhibaataysan oo lagu soo biiro waxay inoo tahay